nolosha aad maanta doorato ayaad beritu ku noolaanaysaa. taajirnimadu waa doorasho, sidoo kale faqiirtinimadu waa doorasho. aqoon inaad yeelato waa doorasho aad adiga dooranaysid, inaad jaahil ahaatana waa doorasho. inaad nolol wanaagsan qurux badan aad ku noolaato waa doorasho aad maanta dooranayso. sidoo kale inaad nolol qariban oo xun aad ku noolaato waa doorasho. wax kasta waa doorasho iyo ficil. qofkeena ma helayo wax uusan dooran, aan ula jeedo wax uusan shaqaysan. haddaba sooma dhihi karno qof kasta maanta waxa uu doorto ficilkeedana uu la yimaado ayuu beritu helayaa. doorashada nolosha maanta ayay dhacaysaa. badankeena waxa aan dooranayno kama warqabno, balse wax kasta oo nagu dhaca waxaan dhahnaa alle ayaa inoo qadiray. waa sax, alle wuu kuu qadiray, sababtoo alle waxa uu ogaa inaad la imaanayso, sababteeda ayuu kugu qadiray. ilaahay waxaadan shaqaysan oo aad sababteeda aan la imaanin miyaad rabtaa inuu ku siiyo? ilaahay wuu awoodaa inuu ku siiyo, balse sabab ayuu u yeelay. haddii sababtaad la timaado waad helaysaa, haddii aadan la imaanina ma helaysid. doorashada nolosha maanta ayay dhacaysaa. beritu ama sanooyinka soo socda natiijada ayaad helaysaa. naftaada been ha u sheegin. maanta waxa aad shaqaysato, u dadaasho, wakhtigaaga aad geliso, tacab badan uu kaaga baxo ayaad beritu helaysaa. ogowna alle ma dayaco ajarka dadka muxsiniinta ah.